إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم. هوينكنا إلهي وأون نعميي والنبي عليه الصلاة والسلام إذا المرأة أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye, laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waa wax iska dhib yar. naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyadoo ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi. rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka salaada tukada albaabbay jannada ku leeyihiin la yidhaa baabu salaa. dadka soonka laazima albaabbay ku leeyihiin baabu rayaan la yidhaa. dadka sadaqada bixiya albaabbay ku leeyihiin baabu sadaqa la yidhaa. dadka jihaadka u dadaala albaabbay ku leeyihiin baabuljihaad la yidhaa. abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuul allah, hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayoo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi. markaasuu nebigu yidhi nacam wa arjuu an takuuna minhum. haa way jir rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal kan ka soo gal way jiraan. raggaa inaad ka mid tahay baan rajay buu rasuulku yidhi abubakarow. abubakar keliya ka geli maayo 8 albaabe waxaa la galaysa gabadha saalixadda. ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa. hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqti inaad tukato, bisha rabadaanna ay soonto, farjigaygana xumaanta ka dhowrsato, ninkaygana ay adeecdo 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay ka doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. 8 albaabee jannadu leedahay ayay ka doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. hadday gabadha laga hela 4 camal, bisha rabadaan oy soonto, 5 waqti oo ilaaliso, xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega oy adeecdo, 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha. waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka ayaa xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi. caaisha weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi. waxay tihi maxaan kaga fadli badannay? waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye. wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna. waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan, salaadda ay tukanayaan, ee raggooga ay adeecayaan. fadligiinna iyo masabkiinna diinta islaamku meel sarayna dhigtay. nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horraanba. wuxuu nebigu yidhi hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi. dhegayso gabadhayda muslimadday, diinta islaamku hoos kuumay dhigin, xaqaagiina may qarine, bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday.